أنا waxaan ku dhashay xamar magaalada muqdisho aan ku dhashay dhankan hadda oo shibis loola baxay hortii waxaa la dhihi jiray bilaajo marka xaggaasaan ku dhashay anagoo yar ku soo barbaaray dugsi qur-aanaan ka bilaabay dugsiga qur-aanka markaan dhameeyey ayaan iskool oo bilaajo carab aan galay oo af carabi iyo af talyaaniga noola qorayo warka waagaas waxaana waa lagu sameeyi jiray riwaayadaha oo iskoolaadka oo laga sameeyo dhalinyarada oo yar yar af carabiya lagu sameeyi jiray riwaayadaha taariikhda dhalashadaadii haddaan ku weydiiyo ma xusuusan kartaa waqtigii ay ahayd waxaan dhashay 1900 waxaa laga yaabaa ilaa 39kii meelahaas 1939 xamar ku dhashay marka waqtigaa xamar ilmaha dhasha yaa diiwaan gelin jiray waxaa jiray waagaas talyaani haystay waxaa la dhihi jiray afis yacni afis baa loola bixi jiray mana aqaano oo waagaas talyaaniga baa haysi jiray marka ma gurigaad ku dhalatay sida caadada ahayd mise isbitaalaa jiray marka gurigaan ku dhashay naaji sacad aabbaha uu ahaa hooyadaana magaceedii faadumo maxamed baa la yidhaha allahu naxariisto habeen allahu naxariisto marka hooyo faadumo waqtigaa adi ma reer ku weynaa mise gabar baa iga weyneyd anaa ku xigay waaya barbaarintaadii marka iga waran waxbarashada markaa maxaa la baran jiray waqtiga af talyaani iyo af carabiyaa la baran jiray qur-aanna waan dhigi jirnay marka waxaan dhameeyey ilaa dugsi sare jaamacad ma galin dugsi sare markaan dhameeyey ayaan waxaan u guurnay xamar weyne isku raran marka waxaa u dhowaa dirisoonka leegada xisbiga syn fankaan jeclaa habeenkii durbaan baan ka maqli jiray meesha oo anagoo yaran meehaan tegi jirnay oo raggii heesi jiray aasin hurel allah naxariiste iyo cabdi maxamed iyo rag fanaaniin waa maxamed jaamac joof iyo waagaas idaacadda raadiyo muqdisho hal raadiyaa jiray markaas talyaaniga maamulaya markaa mise waqtigii oo waqtigii daaqiliyada laakiin markii oo dowlad qaran aniga waxaan xasuustaa markii calankan la qaatay 60kii ayaan raadiyaha aad u dhegeysan jiray markaasaytii waxaa ka heesi jireen fanaaniin aad aan u jeclaa maxamed jaamac joob allah u naxariistee qaasin huroole suufi cali nin la jira axmed dey marka dadkaasaan aad iyo khadiija cabdullaahi dalays oo hadda joogta maraykanka waan salaamayaa faadama kenya gabar la dhihi jiray adigu meeshaas marka raadiyo muqdishon baa jiray markii calanka anaga laakiin intaan calanka dhalan xisbiga leegada ayaan tegi jireen heesahaan la qaadi jiray dadka intay dadka soo ururayaan aan nimanka horseedayaasha ama madaxda imaanin dhalinyarada oo 13 leegada intaysan miiska soo fadhiisano khudbadaha sii jeedinin anaga durbaankaan markaas u tubi jiray heesaana waa xafidi jiray heesahaasaan qaadi jiray si dadka u soo ururaan markii dadka yimaadeen ayaa khudbadihii bilaabi jiray heesahaasaan qaadi jirnay oo halganka leegada yaa lahaa marka abaabulka in fanka la abaabulo ma jirin markaasu wuxuu ahaa kooxayaala ka jireen wadanka oo maaragtay kooxda banaadir iyo koox waxaa iyo riwaayada waxaa la sameey jiray riwaayada waxaa la jiri jiray hindidoo kale wax dhaqan ee markaas ma jirin oo weli iyo ajnabi iyo waxaas wax ku lahaa kadib aan dhaqanka markaas sidiyaan leegada heesihii oo ku soo baranay xisbiga gubaabinta yacni ummadda soomaaliyeed sidii ay yani xorriyadda loo raadin lahaa ayaa meesha heesaha ma kala kulanteen marka maadaama wadankii isticmaar ku jiro leegadina aysan awood badan lahayn heesuhuna ay yihiin wax la ogyahay inay saameyn weyn leedahay marka laga hadlo bulshada gubaabinteeda dadkii markaa wadanka ka talinayay cadaadis ma kala kulmi jireen mase may fanka maya fan oo saas oo dhisan ma jirin markii calanka la qaato unbaa fankii la bilaabay ayuu xoog yeeshay laakiin calanka doonisteedii kaalin weyn uu ku lahaa fanka waxaan ku qaada xisbiyada ayaa lagu heesi jiray bes markaasaytii xisbigana markii laga soo baxo buuq ma la samayn jirin in la arkabo waa bixi jiray marka heesaa
dadkan lagu soo dugi jiray markay heesaas maqlaan kulli way imaan jireen oo wacyigelinta adiga qiyaastii marka goormaad bilowday fanka 54 meelahaas 54 bilaabay dabcan adoo 15 jir adoo 15 jir meelahaas 14 jir ayaan leegada tagi jiray ka bacdi 20ka markaan gaaray oo ayaan koox yar oo banaad dhaxay heesaheed jecleed waqtiga oo aad isleedahay heesii fanaaniinta dhageysan jirtaa sheegtay yaa saameyn kugu lahaa horta ma heesii wadanigan aan qaadi jirin wax kale ma la qaadi jirin weli kadib markii oo calanka oo la qaatay markaas heesaa maxamed jaamac joob aan jeclaa iyo heesaa suufi cali iyo intaan calanka la qaadan heesaha saameynta lahaa maxaa ka mid ahaa oo xilligii gobonimo doonka heesaha oo leegada laga qaadi jiray carabina waa dhageysan jiray oo wacyigelinta meeshaasaan ka baranay wadanimada iyo waa carabi يا أيها صومالي يا أيها صومالي شمروا وبادروا عونا عونا فاهدنا يا ربنا وارشدنا شمروا وبادروا عونا عونا فاهدنا يا ربنا وارشدنا هوبلاي 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 Somalia hanolaato maxaa kaloo kamid ahaa marka heesaha kale waxaa kaloo kamid ah isla hees iyo oo gobonimo doonka ee leegada dhulkiin u dhaarta dhulkiin u dhaarta dhegxumada ka dhowra soomaaliya dhammaanteed ilaahay ha nooleeyo dhulkiin u dhaarta dhulkiin u dhaarta dhegxumada ka dhowra soomaaliya dhammaanteed ilaahay ha nooleeyo hobalay hobalay soomaaliya ha noolaato axmed naaji aad baad u mahadsan tahay maxaa kale ood is leedahay haddaan kusoo noqdo hees weli waa jira hees kale waxaan xasuustaa kale oo leeyihin oo leegada gobonimo doon ka mid ah wuxuu ka ahaa kani waa addoon kani waa ugaas waa inaan ilownaay kani waa addoon kani waa ugaas waa inaan ilownaay abtirsiima iyo qabyaaladii waa inaynu tuuraay abtirsiim iyo qabyaaladii waa inaynu tuuraay hobalay hobalay soomaaliya ha noolaato hees kastaba markaan qaadnaba soomaaliya ha noolaataan kusoo gabagabaynaynaa marka qabyaaladii waagaas fiil kana waa addoon kana waa ugaas waa inaan ilowna